yeydu maalin kasta waxay mid ka mid ah ubadkeeda u geyn jirtay mas aad u halis badan masku markuu helo ubadka yeyda wuxuu u bedeli jiray taalo dhagax ah dabadeedna wuxuu ku dhexayn jiray godkiisa yeydii aad bay u murugootay qalbigeeduna wuu jabay sababtoo ah maalin kasta waxay luminaysay mid ka mid ah carruurteeda ugu dambayntii waxa uu haray hal cunug oo keliya iyadoo quus ka buuxdo ayay yeydu u tagtay libaaxa si ay gargaar uga hesho waxay ku tiri boqor libaaxow fadlan iga caawi maskaas wuxuu igu baabiyey carruurtaydii libaaxii ayaa si murugo leh u eegay yeydii dabadeedna wuxuu yidhi maskaas xitaa wuxuu dilay xaaskaygii anigu ma awoodo inaan la dagaalamo aad buu u awood badan yahay markay aragtay in libaaxu uusan caawin karin yeydii waxay u tagtay maroodi weyn iyadoo baryaysa ayay ku tiri maroodiyow fadlan iga caawi maskaas wuxuu qaatay dhammaan ubadkaygii maroodigii wuu ogolaaday inuu caawi laakiin isla markiiba markii uu maskii hortiisa istaagay maskii wuxuu maroodigii u bedelay taalo dhagax ah sida kuwa kale yeydii markay aragtay arrintaas aad bay u argagaxday cabsi darteed ayay ka carartay si ay nafteeda u badbaadiso si uu masku uga daayo waxay xitaa siisay cunugeedii ugu dambeeyey yeydii iyadoo ooyeysa oo qalbi jab ka muuqdo ayay jidka ku socotay iyadoo weli ooyeysa ayay yeydii jidka kula kulantay jiir yar jiirkii ayaa weydiiyey walaal yeyow maxaad ooyeysa yeydii ayaa si murugo leh ugu jawaabtay maskaas ayaa mid u qaatay carruurtaydii oo dhan waxba kama qaban karo jiirkii yar ayaa si kalsooni leh u yidhi hawal welin aan kula tago waan ka aarsan doonaa maskaas dhanka kale maskii wuxuu bilaabay inuu mar kale nool ka dhigo dhammaan taalooyinkii dhagaxa ahaa si uu mar kale u cuno isla waqtigaas ayay yeydii iyo jiirkii gaareen godkii maska maskii markiiba wuu liqay jiirkii yar laakiin markii uu jiirkii galay caloosha maska wuxuu bilaabay inuu gudaha ka qaniino isagoo isticmaalaya ilkihiisa fiiqan maskii xanuun darteed wuxuu madaxiisa ku garaacay dhagaxyada marar badan ugu dambayntii maskii wuu dhintay isla markiiba dhammaan taalooyinkii dhagaxa ahaa waxay dib ugu noqdeen xayawaan nool jiirkii geesiga ahaa ayaa markaas si nabad ah uga soo baxay afka maska qof walbana wuxuu ogaaday in mararka qaar xayawaanka ugu yar uu samayn karo geesinimada ugu weyn